knn warwaadigan kashkashdayna kelmadaad mar tiraahdo midii kaabil ahayd kolna aan odhanayni ma kaftankii kalamaane kulmiyaad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix kurodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn now dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay aga eega managa isku maana maxaad kayga ku diidi dadku waa kalamaan kulmiyaana midaysay horta sheekadan kalamaana maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino war kalamaanay war ma haysiine hadda ka hor dawladda Djibouti wadaad mucaarad ka noqday kadibna reer Djibouti waa heeseen waxay dhaheen walwaleeyoy war kala yimi wadaadkeeni waka wadaadkeeni waka waraanday reer Djibouti ka cabanayeen hal wadaad 3,000 oo wadaad oo aan mid naxariisanaya ku jirin anaga qoorta la noo gali war wadaadada inta jooga ma wadaad reer Djibouti yaa ku jiro arnamiya umaysiin lahaa wiil wal halay warya yeleer kor waan wal kareebe laakiin wadaad wal halay leeho isan arag dang meeli fadaakiin wadade kaalay reer Djibouti say wadaad hees ugu qaadeen wadaadadu heesaha ma ogole wadaad loo heesa wiligay ma arag wadaad xatrayhaasa waa arki jira ogaadee wadaad hadoo waasho kaliya ma waashe dadka dhamaa ka daba waasha war wadankana waa waala xitaa wadaad loo heesaad ku waala tiradinka dhaniye warka naga dhageysta sababtii keentay Sheekh Maxamed Cabdi Umalba wuxuu sheegay inuu garoonka X Banaadir la oran jiray haddana la yiraahdo injineer Yirisow muxaadaro ku qabanayo maalinta Jimcaha muxaadaradan ciwaankeeda wuxuu ku tilmaamay asbaabul masaa'ib oo macnaheedu yahay sababaha masiibooyinka keena wuxuuna ku faahfaahinayaa masiibadu intaysan dhicin sida looga hortagi karo iyo haddii ay dhacdo sida loo maareeyo wax looga qabto wadaad ninkooy sheeg umalay koowma hortiis sheekeeyaa waa ka horeey muhaadariisna bay ka saabsanaaytay marka hore efi walaalkaaga marka dambena haruumo ciidanka intisaadiya meeray afiya mushaarkiina war sheekeeyaa markuu baydhabo tagay wuxuu yiri baydhabo aanu meelinkii dhaladii aryaadaha sheekhu mawduuca ka waramayo horta waa mid aad u fiican sababtoo ah balaayadu dhagal la qabtay leedahay daba la qabto male muga in laga hortago ma hawa ku jirtaa markay dad iyo dunya ma ka siismaa laga hortagaane warka anaga dhaxgelinina noo kaadsha ana daatayba dabadood la qabay warka naga dhageysta Sheekh Umar muhaadaradiisii ogeysiiskeeda markuu maqlay Sheekh Somo waa cirka ka soo go'ay wuxuuna yiri Sheekh Umar shartaan uu ka digayo dadkii horseedu kamid ahaa marka maanta muhaadaratiisa cidina ku qaboobi mayso in la qabtana maaha in la dhageystana maaha warnamiya umaysiin lahaa widaad maaltu sukor martana marta ka korkoytina abanta goorna herimka heshiyaasa culumma isma jecla miyaadan hore u maqlina hore waxa loo yiri aan gado isma jecla oo horta Sheekh Somow intuu magaaladan joogay boqolaal show iyo heesa gabdha qaaqaawani ku heesayaan baa lagu qabtay kamana uusan hortagina muxuu muxaadaradan diiniga ku diidan yahay Sheekh Somow hadduu Sheekh Umar ku eedaynayo hadda ka hor inuu qalad sameeyay maanta waxa Sheekh Umar sheegayo eedu ku qaban mayso waana wax meesha ku jira qofka bini'aadanka ahina waa qaldama oo waa iska daciif bini'aadanku marka shalaad qaldantay maanta xaq ma sheegi kartid gar noqon mayso warnamiya u sheeg Somow uli jeetay warjaysan ma bafahanna dhagan sidii fahansiino idaana u jooge ambuladeed unaaye idoo kale taraaso umaralihaw Soomaaliyay haddii aan culumada iyo cuqaasha warkooda qaadanno rajo weyn aan leenahay haddii culummo wada socota la arko ewalaan cidu diidayna iyo kiyaa 20 cayn noqdaye hadda ka hore waxa la yiri wadaada waa la soo wacda idin see weeraraad waadin wadaada waa la soo wacda idin see weeraraad waadin haye war heeskaan idin sheegay reer Djibouti waxay ku soo gabagabeeyeen walaalehen waxay badeen wadaadadu waxay badeen ayaa waana noogu filan wadaadkeeni waka wadaadkeeni waka warwar ma haysiin wasiirka wasaaradda dhalinyarada wadaadii Khadiija Maxamed Diri ahayd telefishinka qaranka waxay ka aragtay wasiirka Sheekh Umar waxayna tiri waxaanay lagu soo wargelin garoonka lama keeni karo
wadaadina wadaadan jeelayna ma siin sheegne ma dhalinyaro balleemay ku walaas wadaadadiyeena oo kaale wasiir qadiijana wadaad miya kaalay dawladda ayadaaba culimada isku dirayse kuwana mawliidkooda ay shaqaalaha u fasaxaysaa kuwana muxaadarooyinkooda ay telefishinka uga sii daynaysaa waxay warnimayo waxaa la yidhi goorma la waasho dadku nacay wanaagii annagu waa wareeray waxaa kaloo hore loo yidhi waalid laga xishoodiyo sidii weli karaama leh weedhi aad tidhaahdaa mar bay waafi noqotaa war allah u naxariistay abwaan shariif soomaali hadda ka hor wuxuu yidhi haddaan weynay walad khayr qabo oo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii baryaba wecelna tuuriyeeya heesaa waxay ahayd in dhibaato igu filan faraqaan ku heesdhaa eebbaagoo shariif soomaali balaayow saadsa wuxuu sheegana hadday farqaha iyo gacmahaba noogu jiraan qof weynoon gambar looga kacayna iyo surwaal bac lagu siibaaya haddaan gacanta ku haynaa allow run waaye war bac ka sii meesha maxaa keenay war kursigaan hiliqhiliq loogama kocorag waaweyn baana isku haysta warna miyaa maysiin warsaday shirkii madawiiniyaalkii hore iyo madawiiniyaalka dambaka kulumeen may natiije ah oo ka bahi yaa okay war ma haysiin madaxweynihii hore xasan sheekha ka hadlay goormaas ka hadlayna wuxuuna yidhi waxaan ku heshiinay in dawladdii mucaarad sharciga la ilaaliyo in laga wada tashto doorashada dhexaysa iyo sidii u dhici lahayd in ciidamada ammaanka aan la siyaasadeen in shabaab dalka laga xoreeyo wixii dhacayna waa nagala raalligeli annagana waa isdhooraynaa war canugaan bulshada ka dhex qabta waa isdhooreenna lagu akhrinayaa dikreeto madaxweyneyaal soo saareen wara ku xanaaqin ilmaan af soomaali ma yaqaaniin warnimayo waxaad sheegaysaan in madaxda ay kulmeen aniga weli shaki baa iga jira hal sawirna kama arkin iyagoo wada fadhiya igu sawir maa ka baxday meesha facebooka laguma arkin miya war kulankii madaxweyneyaasha wax sawira lagama hayo qoraal ka soo baxayna ma jiro cid ka hadasho oon aan xasan shiikh ahaynna ma jirto war fiqi cabdinuura facebookada ku soo qoray maxaa kugu dhacay war facebook kuma sheegine iga aamus madaxweynaha iyo afhayeenadiisuna kamaysan hadlin marka aniga waxaa ii soo baxday berri markii mucaaradku dhahaan heshiiska waa laga baxay in lagu inkir doono oo la dhihi doono wax heshiisa maanan gelin mana aanan kulmin sababtoo ah war dawlad sidii lagu yaqaana waraaquu ku yaalaa buda warya weliba buda walaagi abdinuura qori screenshoda la kahaaye walaaligii waa iswataan waroona waabkaan ku sugaa walaaligii waa iswataan waroona waabkaan ku sugaa waryaada riyaan biyo ku raadsanoo riwaayadaan run u qabnaa war gabadhii la dilay almaas elman maxaad war ka haysaan cidda dishay iyo sababta booliiska abbaaraya xukuumaddana waa cambaaraysay aryaada tacsida almaas elman abwaanguura wuxuu ka yidhi marna lama gafaayo geeridu xaq weeye waagii guduutaba gaadmada dilaag iyo gowraca haldoorrada cidda geysanaysaa ummaddii gablamise garaadkiyo damiirkiyo gacmihii wax qaban jiray garbaduubka yow xidhay xanuunkiyo galiiliyada aadmigu la guban jiray gankayaa ka suuliyey duunyaan gilgilanina haddii lagu gabood falo dad waa kii gadoodee mageel iyo lobaanna war taliya booliisku wuxuu yidhi waa baaraynaa dilkaas war sidee u baarayaa xalanaba ma geli karaa taliyuhu arya abwaanguur waxa uu dhihi waayey horta gabarta yaa dilay waxaan dhihi rabaa bariis aan wax ka soo beexayd booliisku wuxuu ka baaqaya bariis aan wax ka soo beexayd booliisku wuxuu ka baaqaya aroo bariiska dhulka iska baxaayo bii baxaaba ku soo baxdee goormaas bariiska noo baxaa war axmed maxamed cali kiimika mayba erey ilman i gabrooshey weliba haayana difaaciyaasha soomaaliya war elman allah u naxariistay waxaan ku xasuustaa qoriga dhig ee qalinka qaado war aniguna elman waxaan ku xasuustaa markii dalku burburay oo xaafaduhu mugdi noqdeen nalal ayuu ku xidhi jiray wuxuuna ku hoos qori jiray nabaddu waa iftiin war nimada madaxweyne farmaajo wiil yaroo calanka soomaaliya inta ku labistay hargeysa lagu xidhay ayuu la kulmay sawirradoodana waa la faafiyey maxaa shirkii madaxda loo faafi waayey sawirradiisii war carabtu waxay dhahaan laasimana fii shay arooda sacii madoobay caanihiisa maxaa caddeeyeyne gooyo ciwaaro le maaho warwar ma haysaane shalay waxaad diray ciidanka asluubta iyo ciidan harabcad loo bixiyo bac kasii ka mid ahaa hadda tii ka dhacda waa la yaaba kobaha la iska gooy waana markii ugu horrayso asluubtu ay dagaal gasho maandhow baca kasiya ayagoo gobole ay ekis kontarool isku waraysteene been ha sheegin waraa ciidanka asluubtu dagaalkii saban ka qayb galeen beenta iska daa war ciidankaani waa ciidan walaalaha oo isku qaldamay boggooda burcad allah isku marshaha kala dhex gelinina arooda aydiid cabdiraxmaan waayaan cirib iyo jaan meelow agta dhigi ma ka war hayna weriinima
madaxtinimadii ma iska dhaafayne waryaa waa qaldantahay waa guddoomiyaha degmada xamarweyne shidukaa kudaa wadiyaa shimaas naqdin wadiyaa guddoomiyaha waxaa dhahaa cabduqaadir maxamed cabduqaadir wadiyaa hoy وليه أفكار شوفت عن وشان وحكودان صدام باتي سبال الحديدة وليه قفصوغا لسيستان كويدي waryaa reer xamarweyne aan ugu soo kicideena ciidid waa xogayaha degmada يوم بالله هذه يا حساي مدي يا كو يقان aryaada horta faysal cumar basaas miya xow kalamaan dhexdoora ka soo jirta maalinka show war kaamarada qarsoon wata hadaad aragtid ka car arligeenna eebow ka yeel meel ammaan badan aragtideenna eebow miday ku ergaanahaye udub qura ilaahow ka yeel oo awood badan dowlad adag ilaahow nasiya oo islaamiya ummaddani harraado duligu kala irdhaysiiyey ibliiskiyo ilaahow ka qabo cadowga aaneeya warnimada waxaan idiin sheegaa wadaadkii wadaad kale wax ka sheega sub wadaadkii si qaldan waxa u sheega sub askariga amar qaadan waaya sub dalka ninkii si qaldan waxa u wada suba kalamaan dad aragtaan sub adiga laftigaaga shub aro adigana shub oo la kal shub weliba shaydaaga arkala jooga ariimaanka allah idin geliya kala jooga laa ilaaha illa allah arkala jooga ilaahu rabna si laa ilaaha illa allah ilaahu rabna si naga taga khayr haydinku shubme